waxay maxay ahayd soo galeen magaalada dad badan oo qarax lagu soo xiray qof u qarxay ma aha baabuur yaan informationkeeda helno marka waxaan doonaynaa cid kasta inaan la aaminin muqdisho waxa ka bilowday qaraxyo ay fulinayaan shakhsiyaad walxa qarxa lagu soo xiray qorshaha abaabulka ayaa shaki badan ka taagan yahay iyadoo ay dad badan u arkaan inay yihiin shirqoolo siyaasadeed oo lagu fulinayo dana siyaasadeed xafiisyada dawladda Soomaaliya ayaa saraakiil ciidan oo hore xilal u soo qabtay kuwa hadda hayaba waxa ay tilmaamayaan in isticmaalka dadkaasi ay ku lug leeyihiin halka saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ay horaanba digniin ka soo saareen taas oo la xiriirta in magaalada Muqdisho ay soo galeen shakhsiyaad xiran walxa qarxa kuwaas oo qof u qarxaya arrimahan ayaa soo kordhay kadib markii ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Farmaajo arrintan ayaa soo shacbaxday 20 November 2022 markaas oo qof is soo miidaamiyay uu isku qarxiyay gaari ay saarnaayeen agaasimayaasha telefishinka qaranka iyo radio Muqdisho oo keenay dhaawaca agaasimaha TV-ga qaranka iyo geerida Allah u naxariistay agaasimihii radio Muqdisho xilligaasi waxa xooganaa khilaafka u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana tani ay keentay durba kala shaki xoog leh intuun uu galo xafiiska madaxweynaha maadaama dadka la bartilmaameeyay ay ahaayeen madaxda wasaaradda warfaafinta oo u muuqatay xilligaasi mid la safatay dhinaca ra'iisul wasaaraha taas oo ay dadka qaar u arkeen inay tahay mid looga argudanayo talaabooyinka mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ay u qaadeen habka ay u maamuleen wararka ka kala imaanayay labada xafiis inkastoo arrintu xilligaasi aanay banaanka u soo wada bixin haddana waxay mar kale shakigan xoog leh uu soo laabtay kadib markii bartamihii bishaani weerar noociisa oo kala ah lagu qaaday afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimo kaas oo dhaawac uu ka soo gaaray lagu qaaday wadanka Turkiga weerarka Macalimo ayaa shakiga xoog leh banaanka keenay waxaana calaamad su'aal la dul saaray sababta markasta oo khilaaf uu soo kala dhex galo labada xafiis iyo markasta oo siyaasadda looga adkaado xafiiska madaxweynaha ay timaado in la qarxiyo qof ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha waliba iyadoo la isticmaalayo qof ay ku xiran yihiin walxa qarxa lamaha kala duwan ee ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la faray in talaabooyin lagu baarayo arrintaasi ay qaadaan iyadoo oo si xiriira xafiiska ra'iisul wasaaraha ay uga socdaan kulamo xoog leh muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa yaraaday gawaarida laga soo buuxiyay walxaha qarxa ee lagu weerarayay dhismooyinka dawladda iyo hoteelada magaalada Muqdisho oo ay bartilmaameeysan jireen ururka Al-Shabaab khubarada ku xeelka dheer dhinaca arrimaha ammaanka ayaa ku doodaya inay suuragal tahay in shabaab ay dhowr arrimood ku dhalisay inay si weyn u adeegsadaan dadka ay ku soo xiraan jaakadaha si ay weeraro ugu fuliyaan Xuseen Macallin oo la taliyay amni ka soo noqday xafiiska madaxweyne Farmaajo kana faallooda arrimaha amniga ayaa sababta bedelashada weerarada Al-Shabaab weeraradii gaadiidka qofka isqarxinaya waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in arrinta shakhsiyaadka la beegsanayo iyo qofku isku soo xiraya miinada waxay ahayd mid hadda ugu sahlan oo ay isleeyihiin waad ku dhaawici kartaa xubin muhiim ah oo dawladda ah iyo dad ay shacabku xanuun ka dareemayaan haddii wax loo geysto inkastoo Xuseen uu sheegay in ay arrintaasi jirto haddana waxa uu dhinac kala tilmaamay inay suuragal tahay in qorshahani ay ka dambeeyaan dana siyaasadeed maadaama qaabka ay u socdaan iyo shakhsiyaadka la beegsadaba iyo xilliyada la beegsadaba ay yihiin kuwa shaki badan abuuri kara